بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بوندا وديال كسو دوادا halkani waa NTN TV kusoo dhawaada warka telefishinka NTN. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ugu dooran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa oo wali ku karantiilan magaalada Abu Dhabi. Al-Shabaab weerar ku burburisay xarun isgaarsiineed oo ku taalay dalkaasi Kenya. gudoomiyaha golaha shacabkuna waxa uu kulamo gooni-gooni la qaatay qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka asagoo ka hadlay xariga Mansuur Roobo markii ugu horeysay. Ra'iisul Wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barrana wuxuu sidoo kale kulamo uu ku dardar gelinayo aqbalaadiisa la yeelanaya xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. qodobada wadarka dibadda aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dhulgariir khasaare badan sababay oo ku dhiftay dalka Afghanistan qaybo kamid ah. Ethiopia waxay ku dhawaaqday howlgal ka dhan ah ama militariga Ethiopia waxay ku dhawaaqeen howlgal ka dhan ah ururka OLA. ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan 22 June sanada 2022. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xubno ka tirsan wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee ku sugan dalka Isuutaga Imaaraadka Carabta laga helay caabuqa COVID-19 taasi oo sababay in dhammaan wafdiga karantiin uu ku ahaado magaalada Abu Dhabi. sida ay warbaahinta u sheegeen loo qaateen xubnaha laga helay fayraska COVID-19 ayaa waxa kamid ahaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo xubno kale oo ay ku jiraan howlwadeenada xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. arrinkan ayaa sabab u ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan wali la kulmin dhigiisa dalkaasi Isuutaga Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed Al Nahyan isla markaana uu dheeraada waqtiga loo qorsheeyay safarka madaxweynaha oo ku ekaa garinkii dambe ee maalinnimadii shalay ee Talaadada ahayd. madaxtooyada Soomaaliya wali kama aysan hadlin arrinkan xilli ay jiraan weydiimo shacabka oo ku aadan xogta wafdiga madaxweynaha oo ay ugu wardambeysay 19 bishaan xilligaas oo ay ka degeen caasimadda Isuutaga Imaaraadka Carabta ee Abu Dhabi. sidoo kale isla arrinkan ayaa saameyn ku yeeshay qorshihiisii la doonayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta golayaasha baarlamaanka Soomaaliya ku horgeeyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre. qorshahaas ayaa fashilmay maadaama madaxweynuhu uu wali maqan yahay. dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maalmihii la soo dhaafay ku maqnaa dalka Kenya qorshihiisuna uu ahaa inuu shalay ku soo laabto dalka ayaa guriga noqodkiisa hal maalin dib u dhigay wuxuuna saaka ka degay caasimadda dalkaasi. wararka ka imaanaya degmada Raamo oo isla maamulka Mandheera ee waqooyi bari ee dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen degmadaasi ay ku burburiyeen xarun isgaarsiineed oo ku taalay degmadaasi. saraakiil ka tirsan laamaha amniga dalka Kenya ayaa sheegay inay maqleen jug xoogan oo ka dhacday deegaanka Kawaanka ay yeeshee markii dambe ay ogaadeen in jugtu ay ahayd mid lagu burburinayay xarun isgaarsiineed oo ay lahayd shirkadda Safaricom ee ku taala deegaankaasi. wararka waxay intaas ku darayaan in iska horimaadku uu dhex maray Al-Shabaab iyo xubnaha ka ahaa ilaala xarunta la weeraray ay yeeshee aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay iska horimaadka dhex maray labadaasi dhinac. taliyaha booliska waqooyi bari Kenya George Sende oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaariyeen ciidamo badan oo biliis ah si ay uga daba tagaan ragga weerarka ka geystay deegaanada xuduudda oo ah Kenya iyo Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro noocan oo kala ah waxa ay ka geystaan degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan waqooyi bari ee dalkaasi Kenya iyagoo mararka qaar weeraro xoog leh ka geysta gudaha Kenya. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa ka hadlay markii ugu horeysay xariga Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Roobo Cali ayaa xabsi guri ku ah magaalada Muqdisho tan iyo 13 bishii Diseembar ee sanadii 2018 markaas oo dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dowladdii hore ayaa la fahansan yahay in xilligaasi Abu Mansuur ay arkaysay ninka kaliya ee caqabada ku noqon kara shakhsiyaadka u waday jagada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed
isagoo oo baydhabo ka waday olole xoogan oo ku aadan doonidiisa ku aadanaa qabashada xafiiska koonfur galbeed Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka oo BBC da la hadlay ama la weydiiyay waxa uu ka aaminsan yahay xariga Abu Masuur Roobow ayaa ku jawaabay markii la xiray dadkii ka hadlay ayaan kamid ahaa markii horena waxaan aaminsanaa in xarigiisu uu sharci darro yahay sidaas darteed Mukhtaar Roobow waa in cadaaladda la marsiyaa xabsi bilaa macna oo sharci darraan kuma sixirnaan doona ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe. Ra'iisul Wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre ayaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka waday kulamo kala duwan oo la qaadanaya xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa si gooni ah ula kulmay mudanayaasha golaha shacabka si ay u muujiyaan taageero in ay siiyaan codka kalsoonida ah marka la horgeeyo golaha shacabka maalmaha soo socda. ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa xildhibaanada waxa uu u ballan qaaday wada shaqayn wanaagsan haddii uu ku guuleysto qorshe horumarineed kuwa hortalinta ula dalka iyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorashooyin qof iyo cod ah. maalmaha soo aadan ayaa la rajaynayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre la horgeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u sharciyeeyaan magacaabida madaxweynaha Soomaaliya. ugu yaraan 155 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 200 oo kalena way dhaawacmeen kadib dhulgariir xoogan oo ku dhiftay qaybo kamid ah koonfur bari ee dalka Afghanistan iyo sidoo kale xadka Afghanistan ee la wadaagto dalkaasi Pakistan. Maxamed Nasiib Xaqani oo ah wasiirka maareynta masiibooyinka Taliban ayaa sheegay in dadka ugu badan ee ku dhintay dhulgariirkaasi ay ku geeriyoodeen gobolka Baqiiqa halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 250 kale. dhulgariirkan oo cabirkiisu yahay 6.1 ayaa ku dhiftay magaalada Khosti oo u dhow xadka Afghanistan ee la wadaagto Pakistan waxaana hadda socda gurmad loo samaynayo dadka ku dhaawacmay dhulgariirka iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka ku geeriyooday dhulgariirkaasi maadaama weli ay socdaan tirakoobka lagu wado khasaaraha ka dhashay dhulgariirka ku dhiftay koonfur bari ee dalkaasi Afghanistan. dowladda Itoobiya ayaa bilowday howlgallo cusub oo ka dhan ah kadib dhacdo dhimasho iyo dhaawac sababtay oo ka dhacday galbeedka Itoobiya. dadka deegaanka wareega ee magaalada Kembi ee galbeedka Oromiya ayaa la kulmayo weeraro aan loo meel dayin sida ay sheegeen dadka deegaanka. in ka badan 300 oo meyd ah ayaa ilaa hadda la soo saaray waxaana weerarka lala beegsaday dad rayid ah. dowladda federaalka Itoobiya iyo dowladda deegaanka Oromada ayaa bayaankooda ku eedeeyay ciidanka xoreynta Oromiyada oo lagu soo gaabiyo magacooda OLA inay fuliyeen weerarkan koox hubeysan oo ka tirsan qoomiyadaasi. balse bayaan ay soo saartay OLA waxa ay ku biirisay weerarkaas waxa ayna ku eedeysay weerarkan inay ka dambeeyaan gacmo ay taageerto dowladda federaalka ee Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in tallaabo laga qaado dadkii ku lugta lahaa dhacdadii weliga oo ay u muuqatay mid dowladda Itoobiya ay ka go'an tahay in ay howlgalkeeda cusub ay dhanka militariga kaga qaado kooxdaasi OLA. bishii Abriil ee sanadkan ayaa ahayd markii ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay qaateen howlgal militari oo ka dhan ah OLA. inkastoo weli dowladdu ay sheegayso in guul laga gaaray haddana OLA waxa ay sii wadaa gaadmadeeda ama duulaamada ku dhif oo ka dhaqaaqda oo ay ka wado gudaha dalkaasi Itoobiya. warkaad kala socoteen intii TV-na waa naga intaas waa ku mahadsantiin daawashada. NTN TV.